saaka waxaan halkan u joognaa in la yiri baarlamaankii ayaa awoodii la soo laabtay awood ka maqnayd oo lagala fakaday waxaan nasiib daraa horta baarlamaanka qodobo halkan lagu soo daliiliyay qodobadaas waxaa ka mid ah law number 23 oo ulajeedadu ay ahayd sharci xeer ay halka ku wada ansixiyeen baarlamaanka labadiisa gole baarlamaanka waxaan ognahay laba gol uu ka kooban yahay 275 waxa u dheereyd 54 inta waan ka wada dhamnayn markii la ansixinayay hadda waxa muuqata hal garab meesha ku fadhina isla qodobkiina waa rabnaa inaan isticmaalno isma qabanayso horta qodobka waa inaan meesha ka saarnaa waxa kale meesha lagu soo qoray qodobka afraad iyo qodobka 64 iyo qodobka 72 ee dastuurka oo qodobka afraad uu sheegaya sareynta sharciga 64 iyo 72 iyo labaadna sheegaya qodobada koowaad iyo labaad in baarlamaanku ay soo dooranayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ognahay shacabka Soomaaliyeed inay soo doorteen 4 sano muddo loogu ekay December 27keedii 2020 shacabka Soomaaliyeed markale ay soo dooran xaqna uma lihin saaka inaan niraahno dadka codkooda aan ku hadlayna anagoo sheegayna inaan codkii shacabka haysano codkii shacabka ma haysano baarlamaankii aan ka wada dhannayn ma dhamin waxaan rabnaa marka gudoomiye baarlamaankan laba gol ka kooban yahay xitaa hadii aan sharciyadna la ka dhacay iyo aan ka hadlayno horta waxaan ku talin lahayn baarlamaan Soomaaliyeed oo baarlamaanka labadiisa gol ka kooban in dib la soo celiyo kadib aan ka hadalno waxa ku soo raacay sharci doorasho annagu xaq ma u leenahay inaan ka doodno markii koowaad ay naga ahayd annagoo sharciyada haysano inaan ka doodnay ahayd qodob dastuuri hadii la bedelayo dalka waxaan ognahay inuu u baahan yahay 184 cod inuu u baahan yahay oo ka kooban baarlamaanka labadiisa gol ka kooban sanduuq sikrada lagu codeynayo qodob dastuuri ma aanan bedelin 4 sano waa naga dhamaatay dalka iyo dadka aan u turno xilkeena uu nala weynaanin waxa laga yaabaa inteena badan inaan ku soo laabano aan ka fiirino waana mahadsantiin aragtideen ha fogaato